السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميلك ساعدون كجوجتان saaxib yaal waa salaamantiin. bal waxaan dhowreeyay ka oranayaa heshiiska dawladda Soomaaliland iyo maamul goboleedka Puntland ay wada galeen dabcan waxa weeye arrimada faa'iidadii ka soo baxday iyo waxa heshiiskaas sababay iyo heshiiskaas hadduu qarannimadeena wax yeelayo iyo hadduu faa'iido yahay waa sheegi doonaa. waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka la garayso oo aad share garayso oo aad subscribe saarato. ugu horreyn waraaqaha aad arkayso waxa ku qoran heshiisyo ay Soomaaliland iyo ay wada galeen maamul goboleedka Puntland. waraaqda maaragtay ee ku qoran heshiiska waxa wada galay Puntland iyo dawladda Soomaaliland baa ku qoran halkaana waa idin soo dhigi doonaa oo lama xaqirin dawladnimada Soomaaliland. heshiiskaasi waa heshiis dhinacyo badan taabanaya waxaanu qeexayaa inay xuduud leeyihiin Soomaaliland iyo maamul goboleedka Soomaaliya ka mid ah ee Puntland kaasoo meesha ka saaraya wax kasta oo maamul goboleed sheegta iyo shufto kasta oo meel gashaba waxa weeye meesha ka saaraya cadaynayana inaanay waxba u dhaxaynin. marka imika ee Soomaaliland oo kale imika wadanka la yiraahdo ee Suudaan dee heshiis xuduudeed ma dhex mari karo waayo Itoobiya u dhaxaysa. wadanka Soomaaliland oo kale dee Kenya ma wada geli karaan heshiis xuduudeed waayo waxa u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliyaba. halkaasi waxay cadaynaysaa inaanay heshiis xuduudeed oo dhul waxa wada gala waxa weeye ciidaanay waxba u dhaxaynin. meesha waxay ka saaraysaa marka hadalka runta ku soo dhawaado nimanka garaadada waxay ku aadimayeen ee ay lahaayeen waqooyi bari baan la yiraahdaa inkastoo iyaga ku dhow ay diideen markii dambe oo ay waxa weeye yiraahdeen waqooyi bari ma nihiba oo garaad cali shiray ku qabteen magaalada halkan laascaanood xaga ka xigta oo niman garaadi ay lahaayeen anagu wax la yiraahdo waqooyi bari ma naqaanaba oo dhulbahantaha oo ay dar ilaahay isaga baabaaday imikana ay qaadkii isku haystaan reer yaro jaamac siyaad leedahay laascaanood dhexdeedii isku leynayaanba oo ay marka horeba aynay ilaahayba ugu talagelin inay maamul goboleed noqdaan nimankaasi. niyow heshiiskaasi waa heshiis Soomaaliland faa'iido u leh waa heshiis dawladnimada Soomaaliland faa'iido u leh waa heshiis xaaladda lagu jiro qarannimada Soomaaliland faa'iido u leh waa heshiis waxyaabo fara badan oo aad u tiro badan Soomaaliland ka anfacaya. waxa ogtiin Soomaaliya inay habeen iyo dharaarba ay miiriyaha la taagan tahay Soomaaliland waan weeraraynaa waxaanu saldhigyo ka dhiganaynaa laascaanood xarunta bariiska u weyne raashinka u weyne ciidanka militariga Soomaaliyana waxaanu keenaynaa laascaanood oo waa kuwii dhagax dhigay. waxa ogtiin inay leeyihiin ciidan 26 leeyahay baanu samaynaynaa. waxa ogtihiin in markasta oo Soomaaliland iyo Mareykanka isku soo dhawaadaan ay leeyihiin waxa weeye eergaaban weeraraynaa biyo uskagi meel ay ku soo marayaan haddii aad moos dhigto dee biyihii waxa weeye mooska ka qabanaya. laakiin haddii ay Puntland xuduudda nagala shaqayso inaguna aynu kala shaqayno Soomaaliland inay dawlad noqoto oo waliba hab amaana ku noqoto oo aan military ahaan loo soo weerarin way suurtagal baanay noqonaysaa. ammaanka guduhuna waxa weeye wax la isku halayn karo noqonaya. Soomaaliland dawlad xuduudeedu nabad tahay oo dawladaha ay jaarka la tahay la nabad kula nool ayay noqonaysaa. maanta carqaladda koowaad ee dalkeena haysataa waa nimanka jabhadda ay abuurmay 2000
iyo 22 bilowgeedii waa nimankan ku xoogaystay laascaanood qabsaday waa nimankan hata ceerigaabuu soo bu'aya waa nimankan xagga shangeed taagan waxaad ogaataa shangeed iyo buuhood leh 30 kilomitir meelahaas isku jiraan dee buuhood leh xadka Itoobiya mara oo Soomaaliland iyo Itoobiya xad bay ka leeyihiin waxaad ogaataa halkan waxay joogaan meel la yiraahdo guumays iyo meesha la yiraahdo yoocada waxay isku jiraan dabcan sidaan jeclahay ilaa 170 kilomitir ilaa 160 meelahaas ku dhowdhowdahay inta uu khalkhalku Soomaaliland ka jira waa intaaba in kale maaha halkii sanaag waa laga heshiiyey meesha jabhad iyo dad aan la garanay waxay yihiin ay ku sugan yihiin waa intaasun haddaba suurtagal ma tahay in Soomaaliland soo afjarto oo ay soo gabagabayso oo ciidanka militariga Soomaaliland uu ku ruqaansado waa mid suurtagal ah waayo dekad ma laha waxa weeye gaari hubsida xadka iyo xagga garowe kama soo dhaqaaqi karo oo dee Soomaaliland bay nabadii kala shaqeynayaan inagana wax garowe dhib ku ah inagana waxa weeye xaggana kama dhaqaaqi karo ama Puntland oo nabadii bay kala ayaynu de kala shaqeynaynaa qofka Puntland soo dhibaateeya Hargeysa yimaado waynu dhiibaynaa qofka Soomaaliland dhibaateeya Puntland tagana way soo dhiibayaan iyaguna intooda nabad ku waxa way ku wadanayaan inaguna inteena nabad baynu ku wadanaa waa sida imka Itoobiya aynu lanahay oo kale Itoobiya qof Soomaaliland dhibaateynaya Addis Ababa hadii waraaq loo qoro ka baxo ku oranaya inagana hadii waxa weeye cid Itoobiya dhibaateynaysa Addis Ababa Hargeysa ka dhibaateynaysa halka waraaq laga soo qoro dee Cabdiraxmaan ee degdeg buu uga jawaabaya waayo xuduud dheer bay naga dhaxeeya tanna waa sidaas oo kale marka waxa weeye jabhadda inta yaree dhexe joogta maanta waa la xaaqi karaa oo meesha waa laga qaadi karaa si ay waxa weeye nabadda geeskuba oo salka u dhigo si ciidamada aan la garanayn meesha looga saaro si Soomaaliland ay wixii arrimaheeda waxa weeye xuduudada iyo arrimaheeda gudahaba ay nabad ku maamulato waxa weeye wax amaan darrada loo sameeynaya waa in dalka xuduudihiisa iyo gudihiisa khalkhal geliyo sida imka waxa Ismaaciil Cumar Gelle la soo keendiraya waa inuu Ismaaciil Cumar Gelle jabhadeen ugu soo fasaxo inaguna ay jabhada ku fasaxno halkaana dhibaato ka dhacdo laakiin maanta ogow Hargeysa waxa la fajabo oo de waxa way Djibouti lid ku ah oo halis ah lagama sameyn karo Hargeysa iyaguna wax lid inagu ah ma sameyn karaan dawladnimaduna waa sidaa marka heshiiska ay maanta Puntland Soomaaliland la gashay waa heshiis guul ah ee waxaan leeyahay reer Soomaaliland oo soo dhaweeya